warsoor wada reer Maxamed Kuturo asxaabta meel kasta waa dunida ka joogtaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaanul kariim bal waxaan gudu gali doonaa barnaamijkeeni channelkeena qadar fani show ee aan ku gorfayn jirnay waxyaabaha dhacdooyinka ah ee isbuuca toddobaadka ugu waaweyn maadaama channelkeena kale aan ugu faa'iideysano wararka ugu waaweyn ciyaaraha waqtiga jira ayaanu channel ciyaaruhu maadaama ay badan yihiin baan channelkeena ugu faa'iideysanayna maadaama sportigu uu badan yahay waliba ay u baahan yihiin waxyaabaha qaar in aad loogu istaago markaa kabti karintan ka dhignaayo sida baa layidhi war Manchester xaalkeeda waa ka waa United waa ka iyo Arsenal waa sida Premier League waa la bilaabaya horyaaladii wali loo isku bahaya coronavirus baa soconaya waqtiga baa la qabtay ciyaaray warba looga maarmayn halkaanse waa meeshaan ku gaabsan jirnayo iska baashaali jirnayo waa meel aan ku qaraxaysano kaftanka ciyaaraha iyo waxyaabaha ugu miisan ciyaaraha ee dhacdooyinka taariikhaha sportiga iyo madadaalada kale aan ugu sheekaysano bal waayahayo waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena markan toddobaadka iyo dhacdooyinka ugu weynaa ee ciyaaraha baan soo qaadan doonaa arrimaha Ballon d'Or-ka iyo waliba maalintii Barcelona la ceebaystay iyo qodobo kale aan soo qaadan doonaayo oo aan ku eegi doonaa barnaamijkeena kan kama marna guuleystayaasha dhageystaya saaxiibada daawadayaalka ah ee ciimadooda aan la haysan karin ee ka soo jawaabay xubinteeni kumaanahay iyo waliba su'aasha maanta ee kumaanahay ayaanu soo qaadan doonaayo subscribe-ka channelka noo saara ciidamada ku tuura ciidamadiisa aan garabka lagu haysan qadar fani show ciidamadiisa aan la haysanin reer iska maldaariyo ku tuura ciidamada ha haysanin oo subscribe-ka noo saara si aad u heshaan waxyaabaha madadaalada ee caalamka ka dhacaya okay waayahayo waxaan rabaa inaan u gudagalo mahadcelinta saaxiibadii ugu horeeyay ee ka soo jawaabay weydiimaheeni xubinteeni kumaanahay ee sportigu ku saabsanayd ka soo jawaabay ayaanu eegi doonaa goordhowe bal waxaanu ku hormari doonaa waxyaabaha dhacdooyinka toddobaadka lagu hadalhaynta badan yahay toddobaadka waxyaabo badan baa jiray oo ugu hadalhayn badnaa haddaanu soo qaadano 2 iyo 1 waxyaabaha ugu hadalhaynta badnaa toddobaadka ciyaaruhu ayaanu ku hormari doonaayo kadib weydiimihii dadkii ka soo jawaabay aan ciimadooda ku tuurayno iyo midda maanta cusub ayaanu soo qaadan doonaa ciidamadiinu ma haysan kara anigu iska tuurayba anigu ma haysto iska tuuray ani ciidamada tahay waayahay niman yahow horta sanadkan Ballon d'Or in la bixinayo loo maleynayo coronavirus ay yimaaday waa la yaaban yahay maxaaba ciyaartooygu waxaa lagu siiyaa Ballon d'Or-ku hadda tusaale ahaan oo kale December waa soo haysaa mar dheereen December Ballon d'Or-ka la bixin jiray sanadkan horyaaladii aan la qaadin war bisha May waxay ahayd bisha lagu guuleysto koobka bishan Champions League baa la ciyaari lahaa finalkiisa Europa League finalkiisa la ciyaari lahaa horyaalada lagu kala guuleysan lahaa bisha May aan ku kudi jirno hadda waa bilihii koobka la ruuxay jiri weeyaan laakiin shaqul gaalku waa loo yimaaday yaaba isdhahay Baroni gaaleedka la qasaya Baroni shaqul gaalka ayaa la qasaya cid isdhahaysay marna ma jirin waxaan dhihi jirin anagu markaan Baroniga aadna galabtii wax leeyahay kubanada ciyaarta adigoo ciyaartii gal rabtaa nin qodax iska soo qaadana maxaa rabtaa walaalow nin ramadaan waa yaqaan isku leeynaya qeyn xasdi yaqaan naga dhaaf yaqaan maya ninkaas ay la soo bixiyaan ninkaas dad soo bixin ma la ciyaaray warniyo waa ku bareeray nooga khala yaaqay toddobaadkii 6 maalmood yaa shamal waa laga banada Baronigu hal maalin adoo qorska fiirinaysa haye arkiim soo socda haye wax wala ma banadiro ma soo socda oo saadheys ciyaarta kugu dhawaanaysa maxaad ba ciyaartaaba waxaan dhihi jiray anagu waa taan isku wareersanahay Baroniyidan hadana Soomaaliya Baroniga marka qaar horyaalada iyo gobolada ciyaaraha ka jira marka qaar waxba babaajiyo ya si uma baaqdaan laakiin Baroniga gaaleed kuma baaqan jirin wala yaa Baroniga gaaleed kuma baaqdaan miyaa la dhihi jiray laakiin sanadkan waxa yimaade virus oo adduunkii kala wareeray waxaan gaalada waxay soo bixin anaga coronavirus maar u waynay dadkii waa u baaba'ayaan hadda kadib coronavirus yiraahdeen guri mugu jiraan shiid ay yimaadeen shiid baa yimaadeen maadaama shiid uu yimaade guri mugu jiri karni geedkan daawo loo leeyahay adduunku wala soo noqonayo mayda hadda aan ku jirno adduunku soo laabanayo waxay dhahan coronavirus maar u mahayno okay waxaan sameeynaa yiraahdeen coronavirus kadib wax leen ka dhigeena xanuunadeeni caadiga ahaa duuma iyo tifo iyo malaria lan ka dhigeena waan shaqaysanayna wuxuu sii qaadan karaa qaato waa kaas ku dhawaadeen maxaa haysa maanta marka sanadkan Ballon d'Or la bixin doono loo maleynayo laakiin waxaa jira ciyaartooy nasiib dara ay ku dhacday laacibiin aha kabiiriin aha kubaddu cagtu ma aysan u cadaalad falin raggan ku sheegaya maanta kamal daarig uma u cadaalad falin waa rag waaweyn Ballon d'Or waligood kuma guuleysan ka war Ballon d'Or-na waligood kuma guuleysan yaa waxaa ku jira dadka laakiin lama filaanka Ballon d'Or ku qaato waxaa kamid ah uu leeyahay Michael Owen iyo Fabio Cannavaro awna Liverpool u ciyaarayay Cannavaro xulka tareen u ciyaarayay Ballon d'Or inay qaataan waxa uu leeyahay rag ka sii mudna ayaa jiray labadan nin iska dhaaf aday gaabka dheeroga iska dhaaf waxa wax ma laga qalan wax laga qaban karo way u qalmaan kuwaas waa nimanka sanad kasta kota gool 6 gool lalayo ma nimankaas cummadooda la haysan kara ayagu u qalmaan laakiin waxaa jiray dad geedkan ilduuf ku qaatay baa jiray sida Cannavaro iyo Owen oo kale Cannavaro difaacu iska aha Ballon d'Or baa la sii koobka dugla ugu lixday
owen isagoo aan horyaan xataa kusoo guulaysan baldoor la siiyey waxaa jira rag ka mudnaa baa jira lagu leeyahay oo cadaalad darre ku dhacday Franka Baresi iyo Paul Maldini laba difaac oo shub ah oo aan caadi ahayn wallahi cimaamadooda la haysan karin Baresi iyo Maldini wadayaasha u noqdo weydiiya way ku sheegayaan labadaas laba difaac oo qatar badan bay ahaayeen wali waxay ahaayeen laba nin oo ka guul badan Cannavaro guulaha ay ka gaareen kubadda cagta halaha Champions League la qaatay waxay ka qabteen kubadda cagta waxay wax ku waayeen Cannavaro ku helay ka war Cannavaro marna uu soo dhawaa kara lagu yiri ninka ka nimanka ka Baresi iyo Maldini walow walka ku qaatay ninka Fabio Cannavaro marka Maldini iyo Baresi kale waxay ahaayeen rag cadaalad darro ugu badan ku dhacday kubadda cagta ee aan baldoor wulid la siinin laba difaac cusub bay ahaayeen okay Raul Gonzalez marba Francesco Totti wuxuu yiri fadeexadii ugu weyneed bay ahayd buu leeyahay inaan baldoor la siinin Raul Gonzalez Francesco Totti baa sidaa dhahay sababtoo ah 2011 ninkaas Raul Gonzalez wuxuu ahaa goolalihii La Liga buu ahaa xilli ciyaareedka iyo Champions League goolaliheedii buu ahaa ninkuu goolasho badnaa balse Raul sanadkaas lama siinin oo baldoorko waxa la siiyay ninka la yiraahdo Michael Owen muxuu magaalo ku qaatay taqaana UEFA Cup uu soo qaaday UEFA Cup Blade Europe League la amalo UEFA Cup uu soo qaaday FA Cup uu soo qaaday League Cup uu soo qaaday baldoor lagu sii ka war Owen waa dadka Ilaahay uu bixiyay geedka wayaan Eldoof ku qaatay Cannavaro waxa ka mudnaa lagu leeyahay sanadkaas Raul Gonzalez baa ka mudnaa mana la siin baa lagu leeyahay sidoo kale liiskan waxa ku jira Thierry Henry mid kamid ah wariyahanadii ugu fiicnaa taariikhda Premier League soo maray waligii Ballon d'Or lama siin waa Champions League winner weeyaan guuleysay Champions League weeyaan ninka ka waliba Thierry Henry Allah maxaad ku taqaana gool Henryad ma taqaana intuu geeska saa u yimaado saa qorofinaya geed saa aba kubada loo qorofinaya gool Henryad baa leeyahay gool shakaaye hadad maqli jirtay gool Messi tan waa gool Henryad buu ninka saa u kubada u qorofin jiray arlaacib uu ahaa ninkaas Ballon d'Or lama siin waliba waa ragii invisible ka Arsenal sameeyay ee horyaal dhan aabitin lagu qaatay ما لقى بدي أرسنال مايا وابديان برجع كلام وابديان برجع كلام صدر ازداد كلهم واقع هوريال كمان لقى بدين سنة كي دمبه أيقو كتب كل أسعودة أي أفرسال كل أبيت كل وجهي أبيت بقول لك هذا أرسنال برميليك هذا نساسه تبى بلدور لما سين بالولين كذا شافي إنيستا لبني الأول بيع حينا بلدور كقوليسن ميسي قال سي بلدور كسنة كا يا يدو لبدن يكسو قوليستين وول كاب كلا ما كوني تبانكي يا إنيستان وصلوا لي حتى جول كي جوشة اسمه كوخذ كوب بدونك هذا السنة كاس ميسي على سيا ولاي وول كاب دن رك قاضي أي أنت لو دير ميسي السيا ولاي سنة كاس عدا لا ترك لو ماشي على بيجي هذا لبض سنين لبنين أو بلدور كأقل ما يد النسين لا سين بعيد حتى أكل كاس يصير كراموس ينوع أقل من ولاي بلدور لا سيو كاس يسوق كوتش رجل لو كنت مقال قاضي كوب بدونك ولو كنت مقال إسبان بكوتشري لكن راموس ونينكي ريال مدريد أو لمن ربطه آخر ساعة على وقت أفرتي شمليك جول ودري حل الدم مدح من كجوين راموس مركز جول وبهانت حل الدم هو راموس يسقى خود الله يحل الدم جول مدح على جاي يحل الدم جول خود الله يا ورم الدفاع والله نكاس عمدي سلامه يسكره ودفاع كفعنا دفاع نكاس لوب برديك رأيانتن ما جت وني شغلي شغل قدرية جول بقول إلا باتن جول ما قطع نكاس موريها ما مسوى الدفاع راموس لما كنت أفرتي شمليك السكة يا جول كوقت دم بس هو دليل مدريد ودليل فاينل كي مدريد النتيجة مسوعدي هذا اللي مسني بلدور خصوصا كاس كريستيانو رونالدو بقى كحضيه أرلو ذان قال وين ضدك واحد واحدين كور حتى جالوكا بوفون لما كن يلحدي أد مو قطر بدل الولاية هذا اللي ما نسي بلدور كل الولاية يا ربي فرانك ريبيري لما كنت بسدح دي سدح كوب يقصوا جول استاك ورا هذا اللي هو بلدور لما سين سنة كل حقوق هذا يا كريستيانو بالسي بلدور كو هذا يا شا يجا اسمعي كريموياني يا iyagu wax waa dhacayaan waa laga yaabay labada cod hatta waxa jira ku kala weyn Pirlo Gerrard Del Piero Ibrahimovic Griezmann waxay ahaayeen ciyaartoy kala weyn oo waliba baldar ku guuleysan markuu waxa uu leeyahay cadaalad ugu weyn ku badacad ku qabsatay weeyaan bal uu leeyahay todobaadkana waxa lagu hadalhayn badiyay wuxuu yahay maalintii Bayern Munich ay Barca garaacday oo ku dhufatay 7 gool yabar labada lug Champions League Ariana baa la tagay Barca afar lagu soo dhuftay Robin waalay Muller baa ugu daray Gomes ugu sii daray waa la waalay Barcelona afar gool baa la geeyay Messi ka dhaawacna sanadkaas dhaawac ku jiray oo lugtilaad xataa markii Barcelona garaacayo kamnu markii la comeback Barcelona sameeyay la rabay gurigooda haddana 3 gool lagu sii dhuftay Barcelona 7 gool baa la geeyay todobaadkan waxa uu hadalay waxay taa markii ay Munich Champions League finalkiisa gaaraysay oo Barcelona semi final lagu dhuftay goolal gaaray 7 gool labadii lug 2013 bay ahayd Munich baa markii dambe Champions League ku guuleysatay oo ka qaaday kooxda kubadda cagta Dortmund جول دراداس waxay noqotay guul daradi weyn Barca ka soo gaar Champions League yaani kulan weyn Champions League ka soo gaarta tani ay Milan hada koorba Milan Champions League intii ku qabatay kuwan afar gool baa laga kicay Barcelona Champions League baana laga qaaday guul daro weyn bay marka Barcelona soo gaartay bay bal leeyahayo ya marka waa todobaad la hadal hayo weeyaan markii lug talaad kaamul la yimaadina Thomas Muller hadda ka dhali Robin hadda ka dhali Robin Maliska cali kariyay marka todobaadku waxa aad iyo wargeysidu caalamka ugu hadlayaan ceebtii ku dhacday Barcelona 2013 marka oo nimankii Bayern Munich ay ku baashaaleen maalinka Bayern Munich baa ku baashaashay nimanka la yiraahdo Barcelona
انت افر حق سدح تدو ايرل وصرفت حتى برشلونه جول ودل ويسي ليونيل ميسي لوقتي لباد كيدكو اسك فدhiyo waxa ka dhaawacna odagu برشلونه isku ogtahay laantooda wax ma qabsan karto bal waa yahay waa hadalhayntii toddobaadka ay kuwa ka ahaayeen bal markaan weydiinteeni shalay rag ka soo jawaabay ee cimadoodu la haysan karin baan ogeynaayo mid kamid weydiintu waxay ahayd waxay ahayd koox baa tiri waran koobkay ugu horeeyay jamligu waxaan ka qaaday koox Talyaani ah koobkii labaad waxaan ka qaaday koox Ingiriis ah saddexaad Ingiriis afraad Ingiriis baan ka qaaday shanaad Talyaani ka qaaday oo kuma naxay kooxda baa laga doonayaa waa Barcelona wayaan kooxaha iska ba ku baashala kooxaha Ingiriiska Talyaaniga afar saddex koob waxay ka qaadeen laba Manchester ka qaadeen hal Arsenal ka qaadeen hal Sampdoria ka qaadeen Italia hal Juventus ka qaadeen shan jamligu ay Barcelona soo ka way ka wakayo rag ka soo joogan ku sheegi doona weydiinta kale waxay ahayd waxaan ahay ciyaartoy laba koox oo kala duwan Premier League ku soo qaaday laba sano isku xigta xiriir kooxdan baan u ciyaaray Premier League baan u qaaday Wartan baan u tagay Premier League baan u qaaday laba sano isku xigta ayaa laba koox oo kala duwan Premier League u qaaday haddana waxaan ahaa nin walka ku guuleystay hadda waxaan u ciyaaraa mid kamid ah kooxaha ugu weyn Ingiriiska waa Chelsea waa N'Golo Kante ninka kaasida ka dhahayo rag badan soo dayo arrinka ka soo jawaabay waxa ku jira nin lagu magacaabo Najib oo degmada Dharkanley jooga Najib ciidamadaadu anigu ma haysto wuxuu leeyahay waa Barcelona ciyaartooy kale waa N'Golo Kante qadar uu ciidamadu leeyahay ciidamadaada garabka lagu haysto Najibow inaad ka qayb qaadato barnaamijkan aad baan kuugu mahad celinayaa yani aad baan kaaga mahad celinayaa sidoo kale nin la yiraahdo Musamil oo Kenya Nairobi jooga waa dadka ugu soo horeeyay ayaa jawaabaha aan soo qaadaya waa in saaxiibada si ugu soo kala hormaraan baan u kala xulanaynaa dad baa jira weydiinta gadaal ka imaanaya laga yaabay xataa qof kale laakiin kuwaano dadku ugu maadaama yihiin iyaga ayaa soo jorjooda dad soo jorjooda ma soo qaalinayna marka Musamil oo Nairobi jooga wuxuu leeyahay cimadii ugu turqadaro war cimadadu ma haysto ninka waa ku farayaraastay wuxuu leeyahay kooxda saas dhayso waa Barcelona waxay ka qaadi Sampdoria waa runtiis kadib Arsenal bay ka qaadi lawshantii waa runtiis lawsdeed United bay ka qaadi waa runtiis United baad markii qaadi lawtugo waa runtiis Juventus bay ka qaadi waa runtii ninkaas cimadii caadil ma haysan kare ciyaartooyga waa N'Golo Kante buu ku leeyahay Leicester iyo Chelsea buu kala qaaday ninka la yiraahdo Musamil oo Kenya jooga ciidamadaadu anu garabkay mi saarno waa kugu soo tuur saaxib waa ku jajaas waa ku wax kaleysay micnaha waad ku wax kaleysay weydiintaayo waxaan ku rajeynayaa su'aalaha kale markaan shuban ka soo dhigaa ani hadda shal bulkeetiyan ka soo dhigay geedka shuban ka soo dhigaa bulkeetiyan ka soo dhigaa su'aalaha bulkeeti man ka soo dhigaa shuban ka soo dhigaya maxaa shub adkaynaya mise bulkeeti isku waxaad ku ordi kartaa man ka dhigaya waxaan ku ordi nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Maxamed wuxuu leeyahay waa Barcelona Arsenal iyo United bay ka qaadatay buu leeyahay koobka iyo Juventus ninkana waa Ganti waa runtii aad baan kugu mahad celinaya saaxiibkay Cabdiraxmaanow waa saaxiibada muqtadadkani ninka la yiraahdo Cabdi Aftah Karam isna wuxuu leeyahay waa Barcelona uu leeyahay kooxdaasu ciyaartoyna waa N'Golo Kante waa lagu wallahi waa lagu cimaamati geedaas magaciigu waxa uu leeyahay Cabdiraxiin oo jooga Yaashid gaar ahaan jungle waa Barca laakiin ciyaartooygu ma laakiin Barca cumad baad ku tahay waa ku mahad celinaya kora football Kante waayaan qadar uu leeyahay hal su'aal buu ninkaas qaatay Maxamed Cabdullaah oo jooga Madiina Barcelona buu leeyahay iyo Kante waayaan Maxamed qadar Ramadaan aad baan ku mahad celinaya saaxib waan ku mahad celinaya sidoo kale Saacid Yar oo dadka kale asxaabtay sida kale nagu soo hambaliyay Ahmed Abu Bakar oo jooga degmada Wadajir isna waxa uu leeyahay su'aashkood waa Barcelona talabaadna waa gaabkii N'Golo Kante waxa uu leeyahay asxaabta aad baan ku mahad celinaya cimadadu ma haysta saaxib ninka la yiraahdo waayaan Ahmedow waxa kalo Xasan Kaafi ba hadlay wuxuu leeyahay Ramadan Kareem Maxamed Qadar waan ka qaaday saaxib Ramadan Kareem baan ku leeyahay sidoo kale walaalkayga ciidamada ma haysan karo waa iska soo tuuray waan kugu tuuray saaxib iyo loo kemu yahay ninkan sidoo kale Cabdisalaam wuxuu leeyahay Maxamed Qadar magaciigu waa Cabdisalaam oo bulxubay jooga jawaabteedu waa Barcelona ta kalena waa N'Golo Kante uu leeyahay asxaabta waa Qalilul gabdhuhu kama tagi karno waa ciidamadooda lama haysan karo wiil baan tirnay maanta dhanay Barcelona bay leedahay iyo Kante ciidamadaadu ma haysta qaaliyay waaw inta waa weydiintii waxay ahayd asxaabtii ka soo jawaabeen bal kuwa kale aan ka gaari way u mahad celinaya laakiin ogaada weydiimaha sida dadka ugu kala horeeyaan ayaan u kala qaadinaa weydiimaha ugu horeey ku soo hordhoqsada ayaa jawaabtu yani sidaas ugu kala qaadnay inta maanta ka soo jawaabto waan mahad celinaya ciidamadiinu ma haysto kuwa kalena waa inaad ka soo jawaabtaan baan rajeynayaa bal maanta mashruubaan ka dhigaa mabulikeetiyan ka dhigaa su'aasha dadka uu ku ordooyin geedka Maxamed Qadar oo dadka uu ku ordooyin geedka yaaqay warmaan adkeeya geedda shubaan ka dhigaa maanta armay geed odayaasha la laabto geedka odayaashu la laabto waxaan ku weydiinayaa waxaan nahay laba cidig oo u ciyaara AC Milan waxaan nahay laba ciyaartoy oo Italiyaan ah oo tartanka Champions League ku wada guuleystay min 5 jeer hadaba yaanu nahay waxaan nahay Insaji ma waxaan nahay ragii tiraga bil u soo ciyaaray Gennaro Gattuso iyo ma waxaan nahay Nesta iyo waxa laga doonayaa laba ciyaartoy oo Italy u dhashay
oo AC Milan u qaaday min 5 jeer oo Champions League u qaaday ayaa laga doonaya waa laba nin oo Italiana Milan u ciyaara odayaasha la laabto midda kale waa waqti dhow hadda baan ku tuurayaayo su'aasha kale waxay tahay ciyaartooy wuxuu leeyahay waxaan ahay ciyaartooy ka soo jeeda Afrika waxaan u ciyaaray kooxo waaweyn oo Ingiriis Talyaani iyo Spain baan u ciyaaray waxaan ahay ninka kaliya ee taariikhda kubadda cagta sameeyay in 2 sano isku xigta kooxdana 3 koob u qaada oo 3 koob u qaada kooxdana 3 koob u qaada 2 sano isku xigta sameeya waxaan ahay ninka 2 sano isku xigta Champions League kala qaaday 2 koox oo kala duwan haddaba kuma ahay waxa laga doonayaa ninka Afrikaanka ah ee sidaas sameeyay kooxdan buu ka tagay kooxdan buu ciyaarayay Champions League u qaaday haddana tan uu tagay Champions League u qaaday 2 sano isku xigta ayuu Champions League kala qaaday 2 koox oo kala duwan haddana wuxuu sameeyay labada record ee weyn ee triple-ka 3 koob in hal koox loo qaado yani in koox ay ku guulayso 3 koob waa wax weyn kooxdan buu 3 koob hal sano la qaaday wuu ka tagay isla kooxdan buu tagay isla kooxdii 3 koob u qaaday waxa laga doonay ninka iyo koox uu ku sameeyay waa mid hore labada ciyaartooy Talyaaniga iyo mid kale ciyaartooy Afrika nabadgelyo asxaabay nabadgelyo baan idin